السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن داود ضيالي يلي جستيال ملك استاجوك تان كسر دواده ورئيس جار الله يلا إنه حرير اللي كحيان كبنتلان محمد حريد وكاجم هذا علينا إن حرير علينا حفيز كاجم نجو غابشيت. sidoo kale wadooyinkii ugu dambeeyay Puntland ku siyaa ka jiray wadooyin kala duwan bay meel qaab kale oo kala duwan way u dhaceen laakiin muhiimadda wareysiga aan rabo inaan kula yeelano waxa weeye kiiskii Najmo ugu horeyn horta sidee buu kiiska Najmo u dhacay xukunkiisii koowaad bismillaahir rahmaanir rahiim raadiyo daljir aad baan uga mahadcelinayaa waan idin salaamayaa dhamaantiin waxa dhacay dembi falxun ayuu ahaa waxa dhimatay gabar yar waliba agoon ah oo qaangaar ahayn waxayna u dhimatay waxay kufsi loo geystay oo waliba labada hoose looga wada tagay la isuna furay caabuqii ka dhashayna ay u dhimatay Najmo Cabdiqaadir dembiga xun oo foosha xun ayaa dhacay balse yaa mas'uuliyadaas leh in la waayo eedeysanayaashii lagu waayo cadeemo buuxa yaa mas'uuliyadan koow waxa iska leh ilma Cabdiqaadir la dhashay gabadha yar oo agoonta siiba ragga waaweyn iyo adeerada iyo eedooyinkii Najmo way Najmo hay'adaha baarista iyo caafimaadka waxa lala soo xiriiray kufsigeeda muddo bil ah markuu ka soo waray muddo bil ana hay'adaha baaristu ma heli karaan cadeemo buuxa kuma heli karaan eedeysanayaasha wax lagu tuhmay xataa eedeysanayaasha waxa la soo xiray muddo 22 bari kadib ayaa la soo xiray saan u maleynay lama soo xirin dhacdadaas markay dhacday dhacdada Buurtinla ayay ka dhacday Najmo waxa la ogaaday in kufsi loo geystay Boosaaso marka la geeyay oo ehliyadeedu ay geeyeen waliba geynta la geenaya Najmo ma ahayn mid ayada xaaladeeda caafimaad hooyadeed oo jabtay ayay raacday oo Boosaaso ku tagtay kadib Boosaaso markay tagtayna gabadhii xanuunsan la arkay isbitaal la geeyay dhakhtaradii u horeysay loo geeyay tir war gabadhiina sugbeed ma ka warhaysan maxaa dhacay gabadhiina qaadatay saldhigga bartamaha geeya riferta oo soo qaaday maxaa dhacay gabadhana waa soo furantahay kursiga loo geystay xataa dhakhtarada ayaa sheegay marka mas'uuliyadaas waxa iska leh dadkii dhalay ayadu gabar yar bay ahayd gabar yar oo da'yar ahayd waa hanjabaad baa lagu sameyn karaa oo qariir loo oran karaa laakiin waalidka dhalay oo garan waaye gabadhooda muddo bil ah xanuunsan oo la isu furay oo guriga u taal oo waliba socota Najmo xataa jir ahaan bay u dhamaatay seebay u garan waaye mas'uuliyadaas ayaga sababtooda leh koow dembigana haddii raadadkiisu ay baaba'aan qiraal eedeysanana aan lahayn sida dembiga lagu helaa aad bay u adag xafiiska xeerlaaninta wuxuu isku dayay marka maadaama raad dembiyeedkii dhabta ahaayo cadeemihii lagu heli haddii maalintii la kubsaday Najmo saldhigga Buurtinla la geen lahaa riferta loo soo qaadi lahaa waxaanu amri lahayn in Garowe la keeno dhacana laga qaadi lahaa cidiyada la qaadi lahaa nimanka la soo xiray waa la sambala laga qaadi lahaa kulli waxa sidii Caaisha kiiskeeda wadadii uu maray ayuu maray isagana kama aysan badbaadin laakiin hadda mas'uuliyadaas raadka wanaagsan oo waxbarasho aan ku heli lahayn oo gabadha xuquuqdeeda lagu heli lahaa waxa baabi'iyay ilma Cabdiqaadir iyo waalidkood ehliyadka idinku marka kaadi mas'uuliyadda laba qof ma wadaagaan mas'uuliyadda Najmo dembigii laga galay waxa iska leh waalidka waana soo cadeeyay way gabar la kubsaday muddo bil ah baarisadeed maxay ka qabanaysaa qiraalna aan lahayn maxkamaduna dhacdooyin baan horgeynay ma aha cadeemaha ee dhacdooyinku waa kala labo dhacdooyin ayaanu horgeynay waxay inkireen saddexda eedeysanay inay guriga tagi jireen shan qof baa soo cadeeyay in nimanka iyaga ay tagi jireen guriga
waa dhacdo la qaban karo dhacdooyinkaas yaanu horgeynay dhacdooyinna qof maxkamad kuma xukunto cadeymo buuxa marka la helo dhacdooyinka way ku kabi kartaa maxkamadu laakiin dhacdooyin kaliya maxkamadii waxba kuma xukun maxkamadu waa tus oo itaabsi qofkan dembi ma galay ha seebo u galay na tus oo na taabsi ma ah waa la yiri saasoo ahaay uu tagi jiray waxba kuma xukunto maxkamad marka mas'uuliyadda waxa iska waalidkii dhalay gabadha idinku marka ogaateen talaabadii kuwada qaadeen maxay inta waajibka qaanuunku nafaraya yaanu sameynay baaristii yaanu sameynay intaanu heli karnaa maxkamad ku horgeynay maxkamadii waa nooga socon weyda waxaanu ku horgeynay dhaarmeed bay ku xukuntay maxkamadii dhaarmeed ayadoo ku xukuntay haddana ilmo cabdiqaadir waxay yiraahdeen waxaanu haynaa dhacdooyin kale yaanu haynaa yiraahdeen raacfaan baanu qaadan hadday dhacdooyin iyo cadeymo kale noo keenaan aan maxkamadda raacafaanka aanu horgeyno aan ku horgeyn karno cadeymahaas iyaga eedeysanayaashaas dembiga waanu ku cadeyno ciqaabtay leeyihiin bay maraya haddii la waayo ma xiraanayaan xafiiska xiraaninta eedeysanayaasha xorriyadooda iyo xuquuqdooda ayuu ilaaliyaa waayo qofaan dembi gelin dembi uusan gelin in lagu xukumo xaashaa lilah laakiin qof dembi galay inuusan sharciga ka baxsan weeye xafiiska xiraaninta waxaa marka haddii aynu weyna cadeymo iyo dhacdooyin oo reerka gabadha dhalay ilaa iyaga kiiska habaabiye xilliga hay-adaha baaristu ay raadin lahayna la soo dhaaf hadday noo keenaan raacfaan tegeena waana qaano maxkamadaanu horgeena waa maxkamadana waa ka horsheegana waana ka hor cadeena hadday noo keeni waayaan reerka ay waxaan leenahay حق دستوري اللي هو حرية دودي سيدة محكمة درجة كوجسو عليسة ويدارمي وحكمتي هلو سيدايان هذه دوين لهلانا أكون نقول رفنا يا ولي هذا الكلام وأكون رفنا يا وحن وغر رفنا يا وحتى إن الكلام ده بعضه يعدين وكلا الله عديمي حل اللي هل لها وحى مسؤولية ده إسكال المع رر قبل دايرة أظنت آخرنا يجعل السؤالين دولة بطلان بان سؤالين آخره وحنا سؤالين عن عيدا أمني وحنا سؤالين هيئات بارسة حفيظ حلال هي محكمة قبل حقوق المع عبد القادر كواوين وحي والد وها ومركا إيه لجو إلهي ويدين طول أنا وسي أنت أنا قبان كهرو قبان هرجين محكمة دينا عدا إسلام كفري أي مرتي بلس رعفان بانك قادر ولي أنا عندها اسكو هيسن رعفان بانك قادر waxaan racfaan uga qaadanaa waxay tahay waa ku rafanaya kiiska hadalka asaga waa ku celcelinaya inaad jirtaan dooni maayo waxaan dhacdooyinka uga qaadanay ilma cabdiqaadir baa waxay yiraahdeen dhacdooyin baan waxayna dhacdooyinka isaga haday noo keenaan aan ku qanacno wax maxkamadda la horgeyn karo maxkamadda racfaanka aan horgeynaa wabillahi addi sababa loo qaaday ee najmo hadii boos laga qaaday ehelkeeda oo ilma cabdiqaadir kamid yahay waxay noo sheegeen inaa u yeerteen oo tirahdeen hal la keeno waliba iyadoo dhakhtar fiican ku jiro xilliga xaaladeeda ay soo hagaagayso hadii yaa u yeeray tiri ma jirteen ma cabdiqaadir hal la keeno gabadha dhibanaha ahayd markii aad sabab u qaadayeen cid ay u sheegeen male way qaadeen cid soo hal soo celiya ma jirto ayaga waxyaabaha ma jara habaabid xataa waxay keeni waayeen waraaqihii Addis Ababa حتى وحي نو كيني وايين عدي qoraaladii dhakhtarada boosaaso ee dhabta ahaa yaana loo keenay way marka ilma cabdiqaadir waxa ay faafinayaan waa wax ku tiro ku teena hay'adaha garsoorkana uma dul qaadan doonaan in laga been sheego qof dhiban oo la soo daaweynayo xilaalin iyo maxkamad amri karta hal la keen ma jirto qofkaas isaga ah ilaa uu caafimaado oo daawadiisa oo hela caafimaad yaa la oran karaa maxkamadda la horkeen laakiin qof xanuunsan oo wadanka dibadiisa loo qaad hal la keeno cid oran kartaa ma jirto najmo marka ma waxa ay ku cadaalad waayaysaa ilma cabdiqaadir dambiga ay galeen yaanay ahayn idinku inaa raadisaan oo meel walba ugu tagtaan annagu raadinay ma waxaan heli karaa sanbaladan ka heli karaa maanta najmo hadaan qabriga maanta laga soo saaro sanbalaha hadaan ka qaadno nimankan aan ka qaadno ma cadeyn baanu ku heli karnaa maya kuma heli karo
cid marka gabadha la kufsanayana saddexdoodaas iyo ayada keliya ahay waxa aan raadinaa waa dhacdooyin la qaban karo maaha caddayn marka aakhire iyo adduunba ilmo cabdiqaadir iyo inta dhashay inta gacanta ku haysa waxaa la isweydiinayaa dadku waddadii caaisha martay oo kale qalabkii xilligii gabadhu boosaaso ay joogtay oo falkan la ogaaday ee qalabkii lagu baaray maxaa diiday in lagu baaro feri gabadha ma laga helayaa biyihii muddo bila xubinteeda taranka ahayd biyihii ma laga helayaa muruxyo waa ka muuqan karaan wayba isu furantayba dhaawac baa ka muuqday oo ah laysu furay oo galmada ay sababtay laakiin ma laga helayaa biyihii cidiyadii haddii laga qaado ma laga helayaa wiilasha iyaga asambalada laga qaaday maqaaradooda ma laga helaya ma laga helayaa dharkeeda muddo bil ah kiis ka soo wareegay haddii dhidid iyo candhuuf ay leeyihiin eedays maya maxaa sambaliska waxaa la qaadaa qofka inta dembiga uu cusub yahay maalan caaisho markii la dilay meydkeedii la soo dhigay hay-adda CID da waxay amartay inaan la dhaqin lana taaban ayadoon la dhaqin oo aan la taaban iyo isbitaalka ugu tageen aqoon-yahanadii forensic science halkaas ayaa sambaladii looga qaaday waxaa lagu hormaray marxuumadda xubinteedii taranka dhammaan waxyaabihii sambalo hayaan oo dhan bay cidiyihii timihii dharkay wadatay iyo looga qaaday kadib maalintii ku xigtay baa waxaa la aaday eedaysanayaasha markaa kadib baa marxuumadda waxaa la amray in la aaso 48 saacadood hadduu ka soo wareego ama 3 maalmood kufsiga hadduu ka soo wareego wax biyo laga helayo iyo wax maqaaroo laga helay iyo wax dhareer iyo dhacaan iyo dhidid ee leeyihiin eedaysanayaasha laga helaya ma jira marka waxaa noo diidayo waxay tahay dembiga xilligii la heli lahaa ma ahayn xilligii uu ku habboonaa waa xilli mas-uuliyaddooda ay leeyihiin waalidkii najmo iyo walaalihii najmo waddada hadda idiin furan maxay tahay waxaa noo furan waxay tahay ayagaanu waxaanu u diray arrimo ay noo sheegeen iyaanu u diray inay ka keenaan arrimaha iyaga hadday noo keenaan iyo kuwo kaloo aanu hore u hayn iyaanu isku darayno waa dhacdooyin la qaban karo waa dhacdooyin waliba dhacdooyinka la qaban karo maxkamad haddaanu ku horgeyno ma aha ciqaabtii ay ka mudnaayeen xeer kufsiga inay helayaan way ciqaabtii ay heli lahaayeen eedaysanayaashaas waxa meesha ka saar waa marxuumadda gabadha waalidkeed iyo walaalaheed yaa meesha ka saar waxa naga go'an haba yaraatee si geed dheer iyo geed gaaban si xaqa oo cadaalada in gabadha iyada xuquuqdeedii aanu helno haba yaraatee haddii dhacdooyinka ay noo keenaan hadday noo keeni waayaan maalintii yoomil qiyaama ilmo cabdiqaadir iyo ehliyadoodaa la su'aalaya oo agoontaas yar oo dhimatay oo sidaa foolxun loo dilay una dhimatay kufsigii loo geysto la isugu furay u dhimatay haddii la waayo waxaa u dirteen ilmo cabdiqaadir raggan raxfaanka hadda u qaadateen ma la fasaxaya qofka la iskama haysan karo qofka isaga ah sharci qof haysan karaa ma jiro qof xafiis haysan kara xeerlaalin baan qof haysan karin maxkamad baan qof adeer sharci weeyo qofka waxa lagu haya haddii dhacdooyinkii cadeemihii aanu weyno lama haysanayo xorriyadoodii baa loo soo celinayaa dhaarmeedkii maxkamadda darajada koowaad go'aankeeda yaa la ayeedaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xeerlaaliin puntland muddooyinka ugu dambeeyey hadalka kufsi baa dhacay baa ku badnaa intee xafiiskaaga soo gaaray taas xafiis dhan unit dhan baan u leenahay oo la yiraahdo xafiiska tacadiyada iyo kufsiga xafiiskaasaa kala xiriiri kartaan oo laakiin adinku aan maxkamadda horgeysan waay annagu kiisaska waaweyn kiisaska qaarkood laakiin badanaa xeerlaalayaasha gobolada siiba gobolka nugaal xeerlaalayaasha jooga ayaa kiiskaa gala ribood idinma soo gudbiyaan xiriireysaan xafiiskaas yaad kala xiriiraysaa laakiin xeerlaali marka maxkamadu iyo xeerlaalinadu oo dhan way isku xiran yihiin ma heshaan miyaa xogaha gobolada kale ka dhacay idinku haddaa xeerlaalinta ku tihiin xafiis dhan baa noo qaabilsan baanku laakiin ma ogid xogta xafiiska uu hayo wariyay dhagayso waxbaad qodqodaysaa waxbaan kuu sheegay aniga ku xigeen xeerlaaliya gudbaan
xeerlaaliye kale shaqo loo dhiibay faraha la gashan maayo xafiis dhan baan leenahay oo la yiraahdo xafiiska kufsiga iyo tacadiyada dumar haddaad doonaysaan bilooyinkan waxyaabihii kufsiga ka dhaca xeerlaaliye la yiraahdo cabdiqani faarax baacsade yaa madax u ah asagaa kala xiriiraysaan wixii istaatiistika iyo kufsi ah iyo wixii dhacay iyo xogaha waa kuu soo gabagabeynayaa kiiska markaan intaa kaga imaado mar labaad intii muddooyinka ugu dambeeyey maxkamadda darajada koowaad tanaa racfaan ka qaadatay inta badan ba ummaddu maqlaysay ummadduna waxay fiirinayeen dhacdooyinka gabdhaha yaryar loola lagula kacay sida laga yeelo dadka qaar baan xukuumadda maxkamada iyo siday u kala sarreeyaan iyo wax badan ka aqoon oo ku dhiga barjoobaya maanta la xukumay shalay maantana waa la xukumay bilka bacdi racfaan baa la qaatay bisna xagga waxaan rabaa marka adigoo aqoontaada uga faa'iideynaya ummadda ku taawanaysa nidaamka maxkamadu u shaqeeyaan iyo qaabkay u kala sarreeyaan iyo xiriiraanintu qaabka ay tahay inaad intaa ummadda u sharaxdo horta maxkamadaha Puntland ka jira ma aha maxkamado macnaha jooye sidii badbaadada oo kale oo xukunka ma dambays ama ah waa maxkamado saddex maxkamadood oo kala sarreeya qofka eedeysanaha ama dhibanaha ah xaq ayuu wuxuu u leeyahay maxkamadda darajada koowaad xukunka ku rido hadduu cadaalad darro ka tabanayo inuu u qaato racfaan maxkamadda racfaanka xukunka ay ridana ciddii wax ka tabanaysa ayaduna waxay xaq u leedahay maxkamadda sare inay u qaadato waliba maxkamadda sare marka loo qaato go'aan ay rido maxkamadda sare xataa waxaa bannaan dib u eegis mar labaad ay samayso maxkamadda sare waxyaabahani waa waxyaabo dastuuri ah waa waxyaabo lama taabtaan ah waa waxyaabo in la maro jidka isaga qaanuunku sheegayo dastuurku sheegayo ma aha maxkamad ciidan maxkamadaha Puntland ee caadiga ah ma aha waayo maxkamaduhu waa labo maxkamadaha caadiga waa saddexda maxkamadood oo kala sareeya waana wax dastuurku qeexay waana qofka wax tabanaya xaq uu siinaya dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan haddii maxkamadda darajada koowaad go'aan ay rido oo aan racfaan laga qaadan oo xukunka dhaqangal noqdo qofku waa lagu fulinaya laakiin racfaan hadduu qaato xaq buu u leeyahay maxkamadda ka sarreysa uu gudbaya racfaanku muddo male maxkamadda ayadaa laakiin muddada lagu soo xareynaya racfaanku maaha 30 maalmood inuu soconayo qofka wax tabanaya cadaalad darrada xukunka ka tabanaya ayaa la siiyay 30 maalmood gudahooda inuu racfaan ku soo xareysan karo aan ku jilciye waxbaadii weydiisaa iga dhexgelin 30 maalmood gudahooda ayuu racfaan ku qaadanaya ma aha racfaanku 30 maalmood buu soconaya xataa wuxuu qaadan karaa maalinta 29aad xataa wuxuu qaadan karaa maalinta 30aad ayuu qaadan karaa wuxuu xareysan karaa baan ka wadaa marka muddo bilo soconaya ma aha racfaan marba haddii racfaanka la xareeyo maxkamadda ayada awood u leh inta fadhi iyo inta dhageysi ay ka dhigayso ma aha bil in lagu soo gabagabeynayo kiiska racfaan ilaa baa saa u soconaya maxkamaduhu waa madax bannaan yihiin maxkamaddu ayada awood u leh fadhiyadeeda inta ay ku doodaha ku soo gabagabeynayso intay xaqiiqda ku ogaanayso intay dhinacyada macnaha ay dhageysanayso fadhiyada yeelanayso maxkamaddu ayada ayaa awood u leh muddo go'anna ma laha wax muddo go'an kiiska isaga muddadaasuu bilaabanaya muddadaasuu dhammaanaya cid oran karta male maxkamadda ayaa awood u leh 2 fadhi bay yeelan kartaa 3 fadhi bay yeelan kartaa 2 bilood bay dhageysan xataa sanad bay dhageysan kartaa xataa dhowr sano ay dhageysan kartaa maxkamadu xataa waxay sameyn karaan Juulaay 2deedii baanu taaganahay 2028 Juulaay 2deeda iyo xataa mudayn kartaa maxkamaddu hadday u aragto in eedan ku jirto cadaaladeed cadaymihii la heli lahaa waxa iskale ilma Cabdiqaadir qofka ehelkiisa la kufsado oo markaba ehelkiisa soo qabta waxa aad sheegtay Caaisha in CID-du ay xukuntay inaan la mayrin ilaa laga qaado dhacanka si aqoon darrada oo kaleeto aysan u iman oo qofku uu amikaba kiiska ula falgalo in aanu tirin falagarashaha xageebu abaaray gabadha dambiga marka laga galo ama ayada ama ehelkeeda ama qofka markaa u dhow haddaysan ayadu socon karin in saldhigga booliiska ugu horeeya riboodka loo geeyo
saldhigga isaga riboodka marka loo geeyo kufsi hadduu jiro oo markaa isagaa dhacay wuxuu la soo xiriyaa headquarterka CID-da waxay amraysaa forensics-ka tagaya samballada ka qaaday marka idaacadihiina la doonayaa inaad tirahaan gabdhaha yaryar ama gabdhaha la kufsado ha qarsanina kufsiga ee xilliga kufsiga raadkiisu taagan yahay soo sheega idaacadaha yaanu u soo jeedinaynaa ardayda inay ku wacyigeliyaan gabdha si ay gabdhuhu u helaan xuquuqdoodii ragga falka xun sameeyaan ciqaabtay mudan yihiin shareecada iyo qawaaniinta si ay uga helaan aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan ku siinayaa fursad fariintaada ummadda la wadaagaysa ugu dambaysan inta hadda ayaan leeyahay caruurta waxaan leeyahay gabdhaha qarsanine kiiska markuu dhaco kiis been abuura haddaa keentaan idinkaa galaya waayo dembi baa sheegtay dembigaa sheegtay waa inuu qof ku cadaadaa qofka hadduu ku cadaan waayo adiga ayaa galay kiis been abuura kufsi ha la imaanin hay-adaha cadaaladda iyo maxkamadaha iyo xeerlaalinta kiis kufsi ah markay gabadhu qabso waxaanu u sheegaynaa inay la xiriirto saldhigga ugu dhow idinkaa